deegaanada u dhaxeeya magaalooyinka Burco iyo Caynabo ee gobolada Togdheer iyo Saraar ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo safar ku gaala bixinaya goboladan deegaanka in afmadoobe ee degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer madaxweynaha waxa ku qaabilay shacbiga deegaanka oo muujiyay taageerada ay u hayaan xukuumadooda madal bilan oo aad loo bilcay ayuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kala hadlay shacbiga deegaanka waxaan aad iyo aad uga mahadnaqaynaa iyadoo jimco ah oo maalintii cibaadada inaad ilaa saaka halkan joogteen oo inaad soo dhaweysaan maalinta dadkoo dhan fasax ahaa aad ku hawlgasheen inaad soo dhaweynaysaan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa dembigeenna Allah ha dhaafo kii waalidkeenna ha dhaafo dal iyo dad iyo dunyaba Allah inoo barakeeyo Soomaaliland tii jirta oo waarta ha noqono wasiirka arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha degmada Qoryaale ayaa shacabka uga mahad celiyay sida ay u muujiyeen taageeradooda aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iyada oo aad u samayseen soo dhaweyntan aad iyo aad ka u ballaaran ee muddada yar ku diyaar garoowdeen annagoo safara halkan aad nagu soo dhaweyseen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa degmada Qoryaale harumar baa laydinka baahan yahay midni baa laydinka baahan yahay ilaalinta qarannimada laydinka baahan yahay difaaca qaranka laydinka baahan yahay soo maaha madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safarkiisa sii wata ayaa si diiran loogu qaabilay jiidaha gobolka Saraar shacbiga ku dhaqana ay muujiyeen sida ay madaxweynaha u garab taagan yihiin si milga iyo madaxtinimo maamuus leh ay dadweynahani madaxweynaha ku qaabileen iyagoo caleemo qoyan lulaya degmada Wadaamago ee gobolka Saraar madaxweynaha Soomaaliland si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay dadweynahuna waxay muujiyeen taageerada madaxweynahooda ay la garab taagan yihiin madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la hadlay shacbiga ku dhaqan degmada Wadaamago aniga ku hadlaya magaca wafdiga waxaanu aad iyo aad ka mahadnaqaynaa soo dhaweynta kalgacalka iyo xamaasadda iyo soo dhaweynta ammaanta loo muujsan oo jimco ah waanu idinka mahadnaqaynaa mar waloo nimaado degmada Wadaamago 10 sano 15 sano 20 sano ilaa halgankii soo dhaweynta iyo kalgacalka iyo taageerada ola xisbi iyo ku dalka lagu xoreynaya baa la garab taagnaydeenna aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa taariikhda isqoraysa bardaha iyo Wadaamago taariikhda qaranka wax ku leeyahay wasiirka shaqagelinta iyo qoyskii arrimaha bulshada Marwahindo Jaamac Xirsigaani iyo gudoomiyaha gobolka Saraar maayirka Wadaamago iyo odayaal kale ayaa iftiimiyay sida madaxweynaha looga taageero gobolada bari madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo waxaan ku soo dhaweynayaa gobolka Saraar degmadii halganka ee ugu ballaarnayd Wadaamago baa wadka yaal ayaan ku soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa bulshadiisii dooratay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanadan uu safarka ku mareeyay si weyn ayaa loogu soo dhaweeyay Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Wadaamago.